dalka Faransiiska wadanka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa heshiis dhinaca xakameynta hubka waxgumaada ee nuclearka la galay dalka Iran. heshiiskan ayaa u dhigan in dalka Iran ka tanaasulo in uu ballaariyo mashruuca hubka nuclearka ee lagu tuhunsan yahay isla markaana caalamka ay u soo bandhigaan in aanay ku tala jirin in ay sameystaan hubka waxgumaada ee nuclearka. dalalka Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa u ballan qaaday dalka Iran hadii uu yeelo dalabkooda in ay markaa cunaqabataynta dhinaca hubka ah sidoo kale dhinaca cuntada ah ay ka qaadi doonaan isla markaana ay u khafiifin doonaan waxyaabo fara badan oo ay Iran ay adduunka uga baahan tahay. dalalka Faransiiska, wadanka Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa sidoo kalena sheegay in ay diyaar u yihiin in ay wax badan ay la qabtaan wadanka Iran hadii ay markaa ay soo bandhigaan in ay gabi ahaanba ay ka tanaasuleen mashruuca sameysashada hubka nuclearka. dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegay in ay dhici karto in madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu gabi ahaanba uu laalo heshiiskan saddex geesoodka ah ee dhexmaray dalalka Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska iyo wadanka Iran oo dhinaca si loo xakameeyo sameysashada hubka nuclearka ee ay lagu tuhunsan yahay marka in ay Iran in ay ku tala jirto in ay sameysato. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu tallaabooyin military uu ka qaadi doono wadanka Iran taasoo wadnaha farta lagu hayo in uu heshiiskan noqdo mid markaa aan midho dhalin isla markaana halka lagu ilaawo hadii madaxweynaha Mareykanku uu go'aansado marka in weerar military uu ku qaado wadanka Iran. Donald Trump ayaa hore u sheegay oo yiri heshiiska lala galay wadanka Iran waxa uu ahaa heshiis aad u xun isla markaana wax faa'iido ah aan adduunka u lahayn waa sida uu sheegay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump.